أولاً وينود عيننا إنك دب سوارقنا وهرو ساقحني إن إلهي دبتا وكقاضو دلك السودان ودلكي أين وحبر شدو تجرني قرب يقاشان كينوها أين الدين يدغم بوداق إن إلهي هو يسره أنت كسكو ما أنت يريدي لها هل كان مقطع هذه كردونا الدولة هذا يتهي وزارة أرمها الدبدة هذا يتهي وزارة ذي كله وحبر الشدي عافمات كي هايدي صدمة إرجعي جاركا هاي أرمها بتقنا يدك دروس ونغنية إن أنجو دولة دي أو يسود اللي تيران أو دم يستيران مواطنيتي الصومالية ما تلقوا سود وينيو مجال مد حدودي حلية كهر قفك الصومالي مركا أي مقادير كوها شدلش الشيء وحصور تجلها الله الدولة سود ويسه تمريتها دون توها لكاته أما بعد قبض سوء لسينا نهل تشرين إلهي بقلد عليه ونقوم هاد علينا إن ما تقرن كأنه دبي نقول صار نقضي وحن كليو أنا وهذا كمان أنا كوسو كوبية إن أنا هرتم هاد علين بلارن وسو جود بينه حال وضعنا ده شوق حدود إثيوبيا إلى السودان قوة شوق السودان إلى سود السودان وزارة أرمها دبده يقوه الرئيس وزارة دي كلنا إلى شوقان حبين يوم مالين بعد اللي يرى الصومالي ده يسوتش ده si ay dadkooda uga soo samata bixiyaan xaaladaha adag waxaan u maleynayaa farxadda ay dareemayeen dadku markay yimaadeen inkastoo xoogay shock ay ku jirtay oo goob dagaal ay ka yimaadeen inay dalkoodii yimaadeen xataa banaankaas ay seexan karaan ilaahay baa mahadda leh aad baad u mahadsantiin fariimayno mas'uuliyiinta kale wixii inta ka soo hadhay sidii loo dhameystiri lahaa wasiir Faarax waa uu garanayaa ardaydaas iyo markaysa waxbarashadooda isagu si dhamaystiran lahaayeen inta hadhayna waxaan ku rajo weynahay in la soo celin doono waan u dalaalaynaa berri iyo saa dambe iyo maalmaha xigaba boqolaal muwaadiniinta Soomaaliyeed baa la soo celin doonaa waxaan u mahad celinaynaa hay'adda IOM oo iyana mataqaana garab naga siisa arrimaha xuduudaha sidii looga soo gudbi lahaa iyo wixii la xiriira muwaadiniinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa inay isgarabsadaan dawladnimadoodana ka shaqeeyaan maanta oo kale ayuu muwaadinka Soomaaliyeed dareemaya ahmiyadda ay dawladdu leedahay wal baan u rajaynaya hawlwadeennada iyo wasiirada iyo dhammaan dadkii hawshan suurta galiyay aad baad u mahadsantahay